Chelsea iyo Manchester City ayaa galabta ku balansan garoonka Wembley kulanka muhiimka ah ee ka hor inta uusan bilaaban horyaalka ee Community Shield-ga. Tababare Mauricio Sarri iyo sidoo kale Pep Guardiola ayaa isku arki doona garoonka Wembley ee magaalada London. Labada kooxoodna waxay yihiin laba kooxood oo si xoogan u dagaalama marka la fiiriyo loolankooda kubadda cagta. Maxaa laga filanayaa Jorginho iyo Mahrez kulamadooda ugu horeeya ee kooxoodii cusub? Mahrez ayaa 60 milyan City ku soo qaadatay. Jorginho waa mid ka mid ah ciyaartoyda tababare Mauricio Sarri sida la saadaalinayo oo ku guuleystay saxiix ahaan. Ciyaartan waxay soo gali doontaa galabta 11 saac ay soo gali doontaa hadduu eebaydmo waana Community Shield-ga. Waxaa wada ciyaara kooxda qaaday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Premier League iyo kooxda ku guuleysatay FA Cup-ka. City ayaa garoonka Wembley marka la joogo ama Chelsea ay la ciyaarayso waxay ka mid tahay kooxaha guulaha waaweyn ka gaara garoonkan. 2012 3-2 ayay kooxda kubadda cagta ee City kaga adkaatay Chelsea isla tartanka Community Shield-ga. Blues inay badiso koobkan waxaa ugu dambeysay 2009 markaasna 4 gool ee Manchester United kaga adkaadeen. Galabta wax badan ayaa laga filan doonaa ciyaartan, waliba xamaasad gaar ay u ahaan doontaa tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea Mauricio Sarri oo qaab ciyaareed fiican ku bilowday waayihiisa koowaad ee kooxda Chelsea. Ciyaarta ugu adagna ciyaartan ay noqon doontaa maadaama koobkan uu yahay koob aad looga daawado Ingiriiska.